بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين halkani waa difaaca dalka Soomaaliya war dagaal aad u qaraar oo aan waxba la isu reeban ayaa waxa uu ka qarxay maamul goboleedka Jubbaland meel deegaanka Raas Kambooni oo fariisin ciidan u ah ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya 37 kiiloomitir meel u jirta oo lagu magacaabo Manami ayaa waxa ka qarxay dagaal qaraar wararka aan halkaas ka helayna ayaa sheegaya in dagaalka ay soo qaadeen ciidamada maamul goboleedka Jubbaland ayna iska difaaceen kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya gaashaan la dhixay Axmed Cabdi Ciise oo ah taliyaha hogaaminayay dagaalka ee dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaana guula ka sheegtay isagoo taliyuhu sheegay inay halkaas ku gubeen 3 baabuur oo laba kamida ay saaran yihiin qoryaha waaweyn ee lidka diyaaradaha loo yaqaan suuga halka midka kalena uu yahay baabuur uu saaran yahay qorigan loo yaqaan jiibka waxaana uu sargaalkaas sheegay inay gacanta ku dhigeen maxaabiis kor u dhaafaysa kontameeye isla markaasna ay saacadaha soo socda soo bandhigi doonaan xiriir aan la sameynay dhinaca maamul goboleedka Jubbaland ayaan wali aysan noo suurta gelin waxayna ka gaabsadeen inay wax faahfaahin ka bixiyaan dagaalka iyagoo sheegay in dagaalku wali socdo dibna ay ka soo sheegi doonaan goobjoogayaal ku sugan nawaaxiga lagu dagaalamayo gaar ahaan deegaanka Buurgaabo ayaa sheegay in ay maqlayaan diryanka madaafiicda oo isla markaasna halkaas ay ka dhacayso rasaas aad u culus gurmadiyada labada dhinac ayaa meesha ku qulqulaya ayadoo ka dhaqaaqeen deegaanka Raas Kambooni cutubyo ka tirsan ciidamada kumaandoosta Gorgor oo uu hogaaminayo sargaalka ugu sareeya ciidamada dawladda ee ku sugan Jubbooyinka gaashaan la sare Xasan Ciraaqi waxaana u muuqata in xaaladii Jubbooyinku ay cirka isku shareertay isla markaasna xiisadii siyaasadeed ee u dhaxaysay maamul goboleedka Jubbaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ay gacan ka hadal isu bedeshay wixii ku soo kordha dagaalka oo ilaa iyo hadda socda isla markaasna ah dagaal aad u culus wixii ku soo kordha ee xaqiiqada ku salaysan annagoon eegaynin nin jeclaysi iyo nin fogeysi iyo taageero qaas ah annagoon eegaynin laakiin ku salayn doona waaqaca jira ee dhabta ah ayaan idin la socodsiin doonaa saacadaha soo socda haddii Allah awood leh ogolaado